dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa hoobiyeyaal ku garaacay hooy uu magaalada Dhuusamareeb ka degan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo oo ku sigtay inuu geeriyoodo iyo hoobiyeyaashii uu ka badbaaday iyo sidoo kale saraakiisha maamulka Galmudug iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed taliyooda waa uu ku jiro oo soo bandhigay sawirada dadkii hoobiyeyaashaasi ku garaacay agagaarka hooy uu ka deganaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa idin soo bandhigi doona iyo xogo ku qarsoon arintan 6 maalmood iyadoo muddo xileenta madaxweyne Farmaajo ka harsan tahay maxaa ku soo aadiyay in hoobiyeyaal lagu garaaco hooy uu ka degan yahay magaalada Samareeb iyadoo saacado uu ku sugnaa halkaas. barnaamij wareedkeena ayaa ku daawan doontaan daawadayaal. sidoo kale barnaamij wareedkeena daawadayaal waxaad ku daawan doontaan dowladda Itoobiya oo hor istaag ku sameysay gargaar bini'aadanimo oo loo waday gobolka Tigray oo si baan u saameeyeen dagaaladii u dhaxeeyay ee qaraara ee dhexmaray dowladda Itoobiya iyo sidoo kale kooxda TPLF. warar arintaasi ku saabsan ayaa goor dhow daawan doontaan iyo maxaa ka jira in uu geeriyooday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo in badanba warbaahinada ay qorayeen inuu xanuunsanaa. warbixinadaasi xasaasiga ayaa ku daawan doontaan barnaamij wareedka. fadlan muuqaalkan like saar lana wadaaga asxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso. markana daawade ku soo dhawow qodobadii aad dulmarka aad daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan. dhowr madfac oo hoobiyeyaal ayaa xalay lagu garaacay magaalada Dhuusamareeb oo marti gelinaysa shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. goobjoogayaal ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in magaalada ku soo dhaceen ilaa 10 madfac oo badankooda ku dhacay hareeraha magaalada laga soo galo iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha. waxaa la xaqiijiyay in weerarkan hoobiyeyaasha ah ay ku dhaawacmeen 4 qof oo shacab ah. magaalada ayaa waxaa ku sugan madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka qayb galaya shirka maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeb isla markaasina looga hadlayo muranka doorashooyinka iyadoona saacado qura laga joogo oo magaaladaasi uu gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ilaa iyo hadda lama sheegin wax madaafiica oo ku soo dhacay aaga madaxtooyada Dhuusamareeb iyo goobaha ay ku sugan yihiin madaxda. hase yeeshee waxaa la sheegay in ay cabsi xoogan ka jirto kadib markii si xoogan looga maqlay jugta madaafiicda. magaalada Dhuusamareeb ayaa amnigeedu soo xumaanaya tan iyo markii laga saaray kooxda Ahlusunna oo xukunka uu qabtay madaxweyne Qoorqoor iyada oo dhowr mar la soo weeraray garoonka diyaaradaha. sidoo kalena al-shabaab ay aad ugu soo dhawaadeen deegaanada ku dhow magaalada. afhayeenka maamulka Galmudug Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii hoobiyeyaasha ahaa ee xalay al-shabaab ku qaadeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Sanka ayaa shaaca ka qaaday in weerarkaasi ay ka hortageen kana jawaabeen ciidamada ammaanka maamulka Galmudug. sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in xubnihii al-shabaab ee weerarka soo qaaday qaarna la dilay qaar kalena nolosha lagu qabtay sida uu hadalka u dhigay. afhayeenka Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in sidoo kale gacanta lagu dhigay hoobiyeyaashii lagu soo weeraray Dhuusamareeb. ciidamada qalabka sida ayaa si sare ah kaga jawaabay dhowr hoobiye oo xalay kooxda al-shabaab ku soo tuurtay Dhuusamareeb. waxaana ciidanka suurto gashay inay qaar laayaan qaarna iyaga oo dhaawac qabtaan maleeshiyaadkii soo tuuray madaafiicda. sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen hoobiyihii ay magaalada ku soo garaaceen iyo qoryahoodii ayuu yiri afhayeenka maamul goboleedka Galmudug. dhanka kale gudoomiyaha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Filippo Grandi ayaa dowladda Itoobiya ku booriyay inay hay'adaha gargaarka u ogolaato inay galaan gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay dhibaatada ka soo gaartay dagaaladii gobolkaasi ku dhexmaray dowladda iyo sidoo kale xoogaga TPLF. tan iyo bishii November ee sanadkii hore dowladda Itoobiya ee uu hogaamiyay Dr. Abiy Ahmed ayaa dagaal kula jirtay xoogaga TPLF oo mara dalkaasi awood badan ku lahaa. dad lagu qiyaasay 60,000 ayaa u qaxay dalka dariska Itoobiya ee Suudaan halka kuwa kalena la aaminsan yahay in ay ku barakaceen gudaha dalkaasi. inta badan gobolka Tigray ayaa waxa ka maqan isgaarsiinta. 2 bilood ka hor ayay ahayd markii dowladda Itoobiya ay guul ka sheegatay dagaalkii ka dhanka ah ciidamada gobolka Tigray. ha yeeshee haatan waxaa la soo warinayaa kufsi baahsan oo ka dhacay gobolkaasi
qaar ka mid ah diblomaasiyiinta shisheeye ee dalkaasi waxay soo sheegayaan in xadgudubyo galmo ah ay ka dhaceen dalkaasi iyo dad baahan oo loo adeegsaday siyaabo khaldan. ciidamada dowladda Eritrea oo ah dal maamul adag oo ka jiro kuna yaala waqooyiga dalkaasi ayaa lagu eedeeyay in ay la safteen dowladda Itoobiya ayna gobolkaasi ka geysteen dambiyo, gaar ahaan muwaadiniin ka soo jeeda isla dalka Eritrea kuwaasi oo waqooyiga Itoobiya ku noolaa ka hor inta aysan bilaaban dagaalada. madaxa hay'adda UNHCR ee qaxootiga Filippo Grandi oo booqday xero qaxooti ah oo ku taala waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in inkastoo ay jirto xaalad amni daro haddana loo baahan yahay in dowladda ay gargaarka u fasaxdo gobolkaasi. sidoo kale hay'adda qaxootiga caawisa ee dalka Norway ee loo soo gaabay NRC ayaa sheegtay in dad aad u kooban oo ay saameeyeen dagaalada loo gargaaray. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed oo horey ugu guuleystay biladda nabadda ee Nobel Peace Prize sanadkii 2019 ayaa haatan caalamka kala kulmaya cadaadis iyo sidoo kale in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamij wareedkii aad ka daawanayseen channelkeena Zucamada Official. fadlan muuqaalkan like saar oo la wadaaga saaxiibtaada, subscribe-na inoo raacay, taasina waxay naga caawinaysaa in saaxiibo fara badan muuqaalkani uu gaaro. waana ku mahadsantahay daawashadaada. tan iyo warkan kiisa xigeenta dib isugu kulmi doona.